dawladii hore jirtay 1989 odayaashu way garanayeen laakiin dhalinyaradu waqtigaas waxa la yahay qaarkood inay gadaal dhasheen yaa waxa jiray magaalada Muqdisho waxa ka dhacay nin oo baadari ah yaa la dilay kaniisadana lagu dilay markii la dilay wixii dilay lama yaqaanee waxa loo saariyay marka wadaadada dilaalay waa 89 wadaadadii markaas hor jooga u ahaa ummadda ayaa la xirxiray oo kamid ahaa Sheekh Abdirashiid Shacli Suufiye kamid ahaayeen ayaa la xirxiray markii la xirxiray maanta jumcada oo kala yaa banaan baxayo kaas balbalaara iyo masaajidkii markii jumcada la tukaday ayaa la soo baxay ciidamadii dawladda iyo nabad sugidoodii iyo koofiyad cas ayuuna soo baxeen baroonada soo baxsadeen dadkii waa la xabadeeyay wax la dhaawac waa la kala eriyay dadkii waa maalin jumca ah 89 jumcadii sabtidii ku xigtay jumca sabtida ku xigtay moogtahay xamar markuu mudaharaadkaas ka dhacay anana baydhadaan joognay baydhabaan mudaharaad kale ka sameeynay tadaamunan maca culimada la xirxiray annaga oo taageerayna mudaharaadkii dhacay reebaydhow yaqaan meesha afridoodka ayaa la isugu yimid oo sawirkii maxamed siyaad barnaamij ku dhigana la jijibiyay dagaal waash mudaharaad laga sameeyay askarti booliska la keenay waa la kala eriyay dadkii galabtii aan isku soo noqonay marka dhalinyaradii iyo mid yar oo dhalinyaro oo hata dadkan midna anaga markaas waxaan dhiganaa dugsiga sare asay dugsiga hoose iyo meelahaas yaa koo wuxuu weydiiyay adiga waxa la isku haystay ma taqaan adiga dawlad iyo waxbay xirtay iyo culimada la xiray waxa laga wado ma taqaanide mudaharaadkan ku jirtay waa qaybaad ka aayade su'aal weydii maxaad u socotaa adiga waa ku yarada ku weydiinay uu fikiray magaas ana may kooga diintii la hoojiyay wuxuu dhaan wax la isku haystaa ma ogin horta laakiin diintu man xoojinay aniga diintii baa la soo galeen baa lahaa oo diintu man garab siinay ma ogin wax la isku haystaa ma ogin ana may kooga walaa diintii la hoojiyay ala sokay wadankeena ay ka dhaceen bilowgii yaa ku maskaxda looga jiro ka soo yar khafiif ah yaa qabaa'ilka waa iska qaban moogtay qabiilkeed tahay waxba la isdhiho waa ana qabiil waxba la isu dilay qola marka meel lagu aruuriyay oo maxay ahayd markaas in dadka in ama laga argoosto ama qabaa'ilka saas oo kala Soomaali waa dad isku mid oo yaani malaka la yaqaaneen abti iyo adeer iyo waxba isu yihiin way isbixin jireen qof marka mesela hadii qabiil meel jooga markaasi oo awood yeesho oo kuwaas ay kuwooda wax magaradka ay dadka laynayaan inta cuqalada wax fahamsan way ka cilnaayeen intay dadkii aruuriyaan meel geeyaan ilaa waxa la isku haysto waa siyaasadda waa kursiga ma dadka la dhameeyay isku ma ogeyn marka intay ka celin karaan ay ka celinayaan kooxa marka meel lagu xareeyay si loo ilaaliyo mid kooxdaas kamid ah oo maskaxda looga jiro oo qabiilka la dilaayo yaa banaanka u baxay laamigu iska soo marmaray mid kuwa mooryaanti ahaa qabteen marka waraaya qabiilkeeta shoo qabiilka la raadinayo la dilaayo kamid yahay qabiilku iska sheegtay qabiilkaas aan oo xageed ku jirteen ani iyo koox badan ba guriga aan ku jirnaa ani kaliya ma imalaysa ku badan inta ku xareysan soo baxna tusba uu soo bax uu soo kaxay intuuna soo gaarin gurigii oo banaanka soo socdala oo meesha ka qayliyay gabar Saynab oo ku jirtay dadkaas yuu la hadlaay markaas wuxuu Saynabay waa lina fahmay soo baxa marka hadda waxaan leeyahay kuwa federaalka noo keenayo waalidin fahmay soo baxnimay Soomaali inaad waxba u haynin inaad isku dirtaan ma ogi marka waalidin fahmay ummadan Soomaali inay dib isugu tashato dagaal intay galeen yaa ilaa 6 saac oo gelin ka hor ay dagaal ku jireen waa la dhaqaajin way gaalada ila dagaalayeen si alla si kasta bay yeeleen kaarta haday u bedeleen gaalada waa la dhaqaajin way markii dambe isku soo laabteen way shuurayeen way tashadeen waxay dhaheen nimayo maxaan ugu dhacay saana lagu hor taagnaan jirin xageena laga haystaa midaa wuxuu niyo waxa ana fahmaysan laga haysto saaka salaas wax markaan tukanay in badan oo kamida dadku waxay ka gaari waayeen sunnadii oo cadayga siwaagi cadayshadii maadaama dagaal lagu jiray salaadin baa la tukaday iyadoo la cadaynin oo mashquulka lagu jiro ma dagaal kor laga galay marka cadaygii ayaan ilownay hadda sunnadii aan ka tagnay ee cadayga ahayd aan hadda cadayno ana inta si wixii dhacaayeen alla waa runtiis qof walba xali geedka adiga ku dhow laan ka gooso oo ku cadayo gaaladin xaqii taagan yihiin oo dagaalku u socda dadkii oo geedaha ku arday oo mid balaan ka jabsanay markay arkeen oo cadayanaya gaaladii weeyaan war dadkan maxay sameynayaan koox wuxuu maxay sameynayaan ilkiha idin ku cuni lahaayeen ay soo faysanayaan
oo wayba nucunaya hadday saas tahay war meesha fadhino ma yaalaan cararna nimayo intaynu soo gaarin adaygii marka laga soo jeeso hal dhaqaaqliiba xagay sii ordayeen gaalada nasrigaas xagu ka imaaday noolayntii sunnadaas la nooleeyay sayyidina umar wuxuu dhigi jiray asxaabtiisa markuu la dardaarmaayo laakiin haddana hore loo maamulaa waxaa la qof meel u socdo lama karo waxaa la lan sabtaha halaagsanto leh jima waan ma dhego sabtida qof dhiman raba oo la halaagi raba sabtida maanta soo jumca ma soo isma wacdinaayo khayr laga sheekaynayo qof raba sabti inuu dhinto oo la halaago wacdiga maanta socda ma maqlaayo lan sabtaha halaagsanto leh jima waan ma dhego sabti lu ku tago dhiman maayne diga wada dilaya maanta bish waa imisa dadkoo dhan saacad fiirin waxay ku dhig maanta ama mobile ku fiirina maanta waa 27 bishii 12aad 2019 hadii la weydiiyo bisha kale maanta imisa maraysaa hayay sub balabta xageen ku jiranta rabiicu thani miyaa ahayd meeqay maraysay waa inuu soo xusuusto ma garan karo bilahaas waxaynu xisaabinaa oo kaliya hal bil bishaas oo bisha ramadaanka bilaha kale ma ogin intay marayso laakiin ramadaan ma la gaaray ma la sooman yahay qofka soo weydiiso maanta soonku waa imisa 7 maraya oo kule way xisaabantahay laana gaajahays soonku ma dhamaaday bes halkaas ay naga egta soomaa idinka meesha idinkaga soo aadani waxay tahay inaad waqtiga ku fiirsataan kuwa waxay isku khilaafeen saacada midigta ma lagu xiranaa mise bidixda lagu xiranaa anay weydiinayaan waxaan jeebka gashada maxaad kartaan idinka waa meeqa saac markii lagu dhahnay soo baxso waa intaas uu marka ama xagga saaro maxaa loogu talagalay saacad in waqtiga lagu fiirsado gaarto waxaa la yiraahdaa al-i'tizaaz bil mabda in lagu faano oo caga juglayn iyo indhaguus aan loo ogolaan dadka qaarkii waa masaakiin waxa uga yar hadii la isla kuleeyo waxay ka tanaazulayaan mabaadiidi oo dhan waxay leeyahay war waxaas ma ku jiro sidii kii mar baan sheegi jiray xildhibaano mar la xulaaya waxa la yiri adiga wadaadada ku jirtaa liiska waa laga reebay markaas war aniga wadaadada maxay iga dana salaadaan tugta xataa goorma igu damis wadaadada sheegaysan maxay tahay marka hadii ay noqoto xaaladdu saas oo kale oo mabaadiidi iyo qofku uu rumaysnaa oo looga leexin karo wax yar oo adduunye kaas qiimo male ninkii yaa socdo si la isaga gado gaalada si la isu tusiyo gaalada koox walba waxay sheeganaysaa oo ay ku faanaysaa oo la qarinaynin anay wataan Mareykanka iyo gaalada iyo anay wataan kii marka sheegtay in asaga la wato mar badan waan sheegay waxaan ku warmayo waxaas waa cayhays caayina kan dhahay yani Mareykanka ay wata waxaan maqli jirin dadka saaxiibada dhalinyarada baabuurka markii qof uu rabaniyo aroos iyo waxbaan leeyahay baabuurkaaga igu soo dar maxay ahayd arooska la galbiye warniyo ani meelan aadahay furaan ku siinayaa baabuurka ma wadanaysaa haaniyo furaha si ana wadanaaye bas baabuurka li soo si baabuurkaas ana wata he baabuur la wato waa la isku ogaa laakiin qof dhan bin aadama waa li wata oo ma baabuur batay seel lagu wadanaayo hebel baa ay wata in lagu wata yaa isku ogaa waxa la isku ogaa in aan lagu wadanin oo qof xor ah oo asagu ikhtiyaarkiisa leh oo maslaxada ummadiisa iyo wadankiisa dantiisa go'aankiisa gaari kara wada waxa u dambeeyay soo hadda lama lahayn kooxdan hadda joogta magacoodu waxa la nabad iyo nolol Soomaa kooxda nabad iyo nolol hadda isugu aadan tahay waxay sameeyeen madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihi oo isla jira gudoomiyihii maxkamadda sare oo keensadeen kii baarlamaanka oday jawaari ay qadaan qadiyeen oday mursal ay keeneen imisa isugu aadan gudoomiyihii baarlamaanka maxkamaddii sare madaxweynihii ra'iisul wasaarihi war waxay reebo u dhiman goboladii xaqooda la aaday bal goboladii ayana fiir goboladii inta waa laga tiimooto gobolada la aaday intii gobolada lagu maqnaayo xagga la aada xaggay hadana ka sii furatay gudoomiye baarlamaanka war maxaa maaya waa kooxdan ani ma kasin hadi kharash badan ku galay seewani adiga meeshan si lagu keenay seewadi warani meeshan odayana aniga beeshadan oday waa bal iskhilaaf xagga kale qolyo mucaarad oo bari iska maqnaa sheekh akhuna Cabdiraxmaan iyo ayagana way soo noqdeen waxa way halkiisuu ka bilaabay laakiin maalinka dhacdo sida inagaan Soomaaliyeed nahay kursiga iyo madaxnimada maxaa la isugu leenayaa hadduu qof walba og yahay cadaaladdu inay gurigiisa ku soo gaarayso wax isku dhibi lahaa ma jiro waxa la dheelaa inta inoo haysa khayr Allah si haynoo wadeen laakiin markii la arkay inayna cadaaladdu guriyaha dadka ugu iimaanaynin
waxaa la yidhi bal meesha un lagu karkarinaayo agteeda yaan lagaa waayin oo maxaa ka rabtaa ima soo gaarayso marka meeshuna meel dadka deeqda ma ah baa la isugu yimid beriga waxaa jira beriga oo jaadka la joojin jiray beriga jaadka mugta la joojiyo qofkii lagu arko dabargoynta qaadka dhihi jiray waa la mamnuucay guryaha lala wareegaa la yidho waad ogsoontiin dadka waashi u yaqaanaa jaadka soo lama joojinin dadka madaxda ee jaadka joojintiisa soo saaray ee dadka dadweynaha ku ciqaabaya ayagu way qayiraan waa loo keenaa sidoo waa loo keenaa galabtii iyo habeenkii u fariisanayaan way qayilayaan jaadkan waa la joojiyaa guryaha lagula wareegayo waxaa la jaad lagu qabtay oday garsoore ah waqtigaas xilligaas yaa kuwo jaad lagu soo qabtaa loo keenay wuu diiwaan geliyey intay ahaayeen intii jaadka lagu soo qabtay waxaa la yidhi marka faylkood ha la soo caddeeyo baaritaan ha lagu soo sameeyo ha la soo celiyo mar kale markii kale intaan la gaarin xabsi markii lagu celiyey intii dawladda show kuwa ka agdhow ay isku reerka ahaayeen hoosta laga sii daayey intii kale unbaa haddana lagu soo celiyey maxkamaddii garsoore markuu yeehi hebel aaway ma joogo hebel aaway ma joogo hebel aaway ma joogo kuwii askartuu weydiiyey wuxuu dadkii kale aaway anay guddoomiye waan soo kaadinayna intay dhaheen ayay baxsadeen masaas ahaa afmaameentuu kula hadlay sheekh ana qaarno halla naxariista u dhintay intii maxaabiista kale ay meesha fadhiday ayaga aan la sii daynin yaa warqad intuu qooxay isiina baha kaadiya idinka bax soo kaadiyo wili haddii intii la soo kaadiyo la iska baxsanaayo maxaa idinka meesha ku haystaan kaadid ma ismeeyay ordu idinka la soo kaadiyo uu sii daayay waana sax inuu sii daayo maxay leedahay loo sinnayn sharcigii oo dadna la sii daynayo dadna la ciqaabayo saas ummad kuma dhisanto waa lagu baaba'aa marka diinteenu waxayna baraysaa ummad markay raba in la dhiso wixii ummadda ka dhaxeeya in loo simeeyaa oo haddii dembi arrintan ay ka imaanayso qofka kuu wixiga waa inuu dembigaas hadduu galo waa in lagu qaado